Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal halkani waa channelka warbaahinta idaacadda codka dowladda hoose kusoo dhawaada qodobada warka duhur waxaana ugu waaweyn gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo xariga ka jaray wadada General Daawud ee degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho wasiirka gaashaandhigga iyo saraakiil ciidan oo maanta tagay degmada Awdeegle ee gobolka Shabeellada Hoose wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya oo gaaray magaalada Garowe oo ka furmaya shir looga hadlayo arrimaha warshadaha Soomaaliya wajiga koowaad ee gurmadka fatahaadda webiga Shabeelle oo la soo gabagabeeyay iyo Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo dib u dhigay dholotus military oo ay sameyn lahaayeen ciidamada militariga labadaasi wadan waa hagaag daawadayaal waa 17 bisha 11 ee November sanadkuna waa 2019 u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maanta wuxuu xariga ka jaray wadada General Daawud ee degmada Warta Nabadda wadadaas oo ka baxda Sinai isla markaana tagta ilaa iyo General Daawud waxaana sidoo kale wadadan ay tahay wada muhiim ah oo halkaasi dib u dhis lagu sameeyay duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku nool degmada Warta Nabadda gaar ahaan kuwa isticmaala wadadaasi iyo kuwa agdegan intaba looga baahan yahay inay ilaaliyaan wadadaasi maadaama ay tahay wada ka dhaxaysa bulshada Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale wuxuu ammaan u soo jeediyay maamulka degmada Warta Nabadda iyo sidoo kale dhalinyarada ku hawlanayd dib u dhiska wadadaasi isagoo sidoo kale sheegay in dalka Soomaaliya dadkiisu ay isku tashadeen isla markaana ay doonayaan in iska wax u qabso lagu dhiso wadooyinka iyo sidoo kale goobaha danta guud ee ku yaala caasimadda Soomaaliya Muqdisho dadka reer Muqdisho ayuu sheegay inay yihiin kuwa ammaan mudan maadaama ay ka qayb qaataan dib u dhisyada ka socda dalka haddii ay ahaan lahaayeen wadooyinka iyo sidoo kale xarumaha danta guud intaba wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Amar Dambe iyo saraakiil ciidan ayaa maanta waxay tageen degmada Awdeegle ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay fariisin ku leeyihiin wasiirka gaashaandhigga oo la hadlay boqolaal ka mid ah ciidanka militariga Soomaaliya ee ku sugan degmada Awdeegle ayaa waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay yihiin geesiyaal looga fadhiyo in dalka ay ka xoreeyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab gobolka Shabeellada Hoose ayuu sheegay in goobaha ay ka joogaan dagaalamayaasha Al-Shabaab laga doonayo in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya in ay ka xoreeyaan wasiirka gaashaandhigga ayaa sidoo kale waxa uu xusay in ciidamada xoogga dalka ay markasta garab taagan yihiin haddii ay yihiin madaxda wasaaradda difaaca dalka wuxuuna sidoo kale soo jeediyay in ciidamada ay baacsadaan dagaalamayaasha Al-Shabaab degmada Awdeegle ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sanadkan waxaa laga wareegay dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaana sidoo kale tuulooyin dhowr oo ku teesan degmadaasi gacanta ku dhigay ciidamada militariga Soomaaliya wasiirka warshadaha iyo ganacsiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xasan iyo wafdi la socda ayaa maanta waxay gaareen magaalada Garowe caasimadda Puntland magaalada Garowe caasimadda Puntland waxaa ka furmi doona shir looga hadlayo arrimaha shirkadaha shirkan ayaa socon doona muddo 2 cisho ah waxaana wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xasan uu tilmaamay in shirkaasi uu muhiimad u yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale ummadda Soomaaliyeed magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa u diyaar garoobaysa martigelinta shirkaasi wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in la soo gabagabeeyay wajiga koowaad ee gurmadka fatahaadda dadkii uu saameeyay webiga Shabeelle ee fatahaadda ka sameeyay magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in la soo afjaray wajiga koowaad ee fatahaadda webiga Shabeelle wasaaradda ayaa sidoo kale soo bandhigtay tirada dadka ka barakacay magaalada Beledweyne ee tagay magaalada Beledweyne iyo sidoo kale tuulooyinka hoos yimaada waxaana sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay in hadda ay bilaabi doonto wajiga labaad ee wax lagu qabanayo dadka banaanka jooga magaalada Beledweyne ayaa sidoo kale waxaa ku soo laabtay boqolaal ka mid ah qoysaskii ka cararay magaalada Beledweyne kuwaas oo muddooyinkii dambe ku sugnaa banaanka magaalada gaar ahaan deegaanka Ceelchaale ugu dambeyntiina dowladda waddanka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay sheegeen in ay dib u dhigeen dholotus military oo ay sameyn lahaayeen labada military ee Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi wasiirka difaaca Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in sababta dib loogu dhigay ay tahay arrimo la xiriira wada hadalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi waxaa sidoo kale Mareykanka uu sheegay in iyadoo ka tixraacaya nabadda ka jirta Kuuriyada Waqooyi in ay go'aansadeen in ay dib u dhigaan dholotuskaasi ay sameyn lahaayeen militariga labadaasi dal warkii oo aad kala socoteen channelka warbaahinta idaacadda codka dowladda hoose waa naga intaas